وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي رب سبحانه وتعالى وحاو كتابيس كليه ولله جنود السماوات والأرض. إلهي وحاو السغنادي junuudda samooyinka iyo dhulka, askarta ku sugan samooyinka iyo dhulka ayaa ilaahay u sugnaaday. askartiisu ilaahay way badan yihiin, qofna ma garan karo. ilaahay waxa uu leeyahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu. dabayshu waa askarta ilaahay. qowmkii reer Caad markay diideen nebi Huud calayhi assalaam ay yidhaahdeen man ashaddu minna quwwa, ayaa naga xoog badan. ilaahay askartiisaasuu ku salliday fa arsalnaa calayhim riixa. qoomkii reer Thamuud markii ay diideen nebiyullaahi Saalix calayhi assalaam, ilaahay waxa uu ku halaagay askartiisa mid ka mid ah waa lagu qaydhiyey. qoomkii Fircawn markay diideen nebi muuse calayhi assalaam, ilaahay waxa uu ku edbiyey askartiisa qaar ka mida. fa arsalnaa calayhim altuufaana waljaraada waalqummala waaldafaadica waaddam aayaati mufasalaat. tuufaanku wuxuu ka mid yahay askarta ilaahay. qoomkii nebi nuux calayhi assalaam ayaa lagu halaagay. inuu ilaahay uu samada uu dhagaax u ka soo da'siiyo askarta ilaahay ayay ka mid tahay. tarmiihim bixijaaratin min sijiil, asxaabulfiil ayaa lagu halaagay. qoomkii nebi luud ayaa lagu halaagay. gariirku wuxuu ka mid yahay askarta ilaahay. asxaabul ayka maxaa lagu halaagay? gariir buu ahaa. nebi shucayb calayhi assalaam qoomkiisii maxaa lagu halaagay? gariir ayuu ahaa. fa akhadathum alrajfatu fa asbaxuu fii daarihim jaahimiin. dadku marka ay fasaadiyaan dhulka, markuu fasaadkoogu uu badda iyo berrigaba uu gaadho, ilaahay waxa uu ku soo saaraa cadaab lagu edbinayo dadkaasi. ilaahay waxa uu yidhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr bimaa kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun. waan edbinaa buu ilaahay yidhi, waxaan dhandhansiinaa cadaab ayaan dhandhansiinaa. wixii ay sameeyeen cadaab ayaan ku dhandhansiinaa buu ilaahay yidhi. weliba ilaahay waxa uu leeyahay wayacfuu can kathiir. ilaahay wax badan ayuu iniga dhaafaa oo iniga cafiyaa. waa raxiim, waa raxmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala. laakiin sunnaha ilaahay waxaa ka mida maalinkuu insaankani uu qooqo, ama insaan ha noqdo ama dowlada ha noqdaan, maalinka ay qooqaan, ay kibraan, ay isqaadqaadaan, ilaahay inuu edbiyo. waa sunnatullaahi fi lkown. waa ininka arkaya dowladda weyn ee shiinaha, dowlatulilxaad, markii ay dhaqaalaheegii iyo ciidankeegii iyo horumarkii ay gaadhay iyo warshadihii ay soo saartay ay ku faantay, ay ku qooqday, ay u malaysay arladan keligeed inay maamuli karayso, oy waxay doonto ayna samayn karayso, oo qofi uuna la xisaabtami karayn. ay 5 milyan oo muslimiin ah ay gaar meel ay ku cadaabeen,
ay u maleeyeen inay adduunkanba iyaku ay maamulaan. xataa idaa akhadat ilardu zukhrufaha wazayyanat wadanna ahluha annahum qaadiruuna calayha. waxay u maleeyeen kownkan gebigiisa inay iyaku maamuli karayaan. ilaahay waxa uu leeyahay marka arrintu sida ay u dhacdo, ataahaa amrunaa laylan aw nahaaran, amarkayagii baa yimaada habeen iyo dharaar wakhtigay ku jiraanba. fajacalnaaha xasiidan kaan lam tagna bilams. masaa'ib buu ilaahay ku sallidaa marka sidii quwaddeedii iyo waxeegii oo dhan una jirin oo kale. kadalika nufasilu alaayaati liqowmin yatafakkaruun. waxaan maanta aad maqlaysaan fayraskan korona la leeyahay, fayraskan korona la leeyahay, ilaahay waa ku salliday dowladdaasi shiinaha ibtilaa wa imtixaan oo lagu edbinayo. nacam, kuma farxayno inuu ilaahay u edbiyey, laakiin waa sunnatullaahi fi lkhalq. waa marad khatarah dadkii ka cabsiiyey ay isdhiibeen raggii ku takhasusay ikhsaa'iyiintii culamaa albatholojiyiin ay isdhiibeen ooy waxba ka qaban kari waayeen. qof arki karaya ma jiro, talaal male, dawo ilaa imika looma hayo. dhimashuu keenayaa, hawadaa lagu kala qaadayaa. qofkii kelyaha fashilmaya kadibna waa dhimanayaa. wuxuu u faafayaa si aan caadi ahayn. 42,000 ayaa imika la sheegayaa ayuu hayaa. 42,000 waa inta la hubo. dhimashadu 1,110 ayay ilaa maanta socotaa. 30 dowladood in ka badan ayuu xanuunkani durba uu ku faafay. ninkii sheegay ee helay ee ka digay xanuunkan xataa isagii ayaa ku dhintay. 400 oo caalim oo Geneef joogay ayaa isdhiibay oo khatartiisa ka digay. dowladda ee shalay iswaalwaalays ee xooggayga ku faanaysay, dhaqaale ahaan sharikaadkeygii, horumarkeygii, inay daciifad ay tahay oy itaan lahayn ayay qirtay. waa askari ilaahay. ilaahay waxaa uu soo diray fayris yar oo la arkayn. ابن عباس waxa uu yidhi رضي الله عنهما: ما ظهر البغي في قوم قط إلا ظهر فيهم الموتان. كبركا iyo qooqaasi iyo dunuubta waaweyn qoomkuma soo daahirta dhexdooda ilaa ilaahay waxa uu dhexdooda uu ka muujiyaa almowtaan. والموتان waxa uu yidhi huwa الوباء الذي يعم الناس فيهلكهم. waa cuduro dadka oo dhan caam yeelaya oo wala halaagaya oo ku dhacaya weeyaan. walaalayaal, kuma farxayno musiibadaasi dadka ku habsatay ee ku dhacaysa muslim iyo kaafirka yar iyo ka weyn, lab iyo dhadig ku dhacaysa. laakiin han ogaano waa sunnatullaahi alkowniya, walan tajida lisunnati illaahi tabdiila. ilaahay wuu edbinayaa dadka qooqa ee kibraa ee arlada isku qaadqaada. sidaas ayuu ilaahay u edbiyaa. waa sunnatullah, waxa lagu qaato gaal iyo muslim, dowlad iyo dad, intaba kii qooqa ilaahay sidaas ayuu edbiyaa. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.